shirka wuxuu ku saabsanaa xakameynta iyo ka hortagga soo laba kacleynta Covid-19 sidaad la socotaan warbixinta ku soo baxaysa wasaaradda caafimaadka waxaa kor u kacaya in nambaradii Covid-19 uu isbuuci kowda ilaa iyo 11 ku dhawaad labada isbuuc ee Febraayo uu aad kor u kacay dhimashadana ay kor u kacday waxaa muuqata in second wave-kii ama soo laba kacleyntii laga baqaayay inay ku jirto wadanka dad badan oo xanuunka u qaba ayaa isbitaal Martiini jooga wadanka guud ahaan kaysasada inta badan uu ka jira xaaladihii oo wadanka uu ka jira waxaa muhiim ah in maaragtay gudiyadii xafiiska wasaaraha ay ka shaqeyn doonaan insha Allah sidii looga hortagi lahaa loo xakameyn lahaa dadka looga wacyigelin lahaa iyo la soo diyaarin lahaa diyaar garow aad u weyn oo muhiim ah in la sameeyo laga taxadaro si kasta oo loo gaari karo bulshada looga wacyigeliyo isbitaalada iyo meelaha lagu karantiilaa dib loo soo nooleeyo wacyigelintii ay noqoto wax aad isu daba joogo cudurkan waa cudurkii aan mar walba ka hadlaynay oo mararka qaarkood la leeyahay adduunka meelaha qaarkood variants kala sameysmayo waa ka awood badan yahay faafidiisa aad ay uga sii xoog badan tahay kii Covid-ka uu ku bilowday maadaama diyaaradihii ay furan yihiin safar badan ay wadanka dad badan oo safar sii baxaan soo galaan waxaa muhiim wacyigelinta inay adkayso dawladda iyo bulshada inteeda kale qayb kasto kala mid ah bulshada waxaa saaran waajib in laga hortago in la soo celiyo la sii adkeeyo in dadka afka ay xirtaan in dadka ay kala fogaadaan meelaha ciriiriga laga dhowro dadka ugu nugul cudurka dadka waayeelada ah la raadiyo dadka ay wacdaan nambaradii loogu talagalay oo يعني warbixin siinaysa qofka xanuunka calaamadihiisa markii uu dareemo inuu raadsado goob caafimaad ah dhaqaatiirta isbitaaladana waxaan ku waaninaynaa waxaan ka codsanaynaa ku adkaynaynaa in hadii xaalada u eg ama qof calaamadihi qaba ay si degdeg ah ay qofka ogala taliyaan ama ay ku kaalmeeyaan inuu raadsado inuu isbaaro taxadarka waa waxa ugu weyn ee looga